kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada ku soo qaadan doonana waxa kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalo ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ku qabtay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Alshabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo Alshabaab ka saaray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud howlgal mina baaris oo ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadada xiriirsa Buufo Bacaadiya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nabadiyadka Alshabaab gaarsiiyay khasaarihii ugu darnaa abida horjooga ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Alshabaab oo ay dileen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horjooga nabadiyadka Alshabaab ka tirsanaa oo lagu dilay gobolka Gado akhbaraadka caalamkana daawadayaal waxaa kamid ah Saamiya Xasan oo loo dhaariyay madaxweynaha wadanka Tansaaniya fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe saar like iyo share la wadaaga asxaabtaada aan ku bilow qodobka ugu horeeya daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal la qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaano kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ku soo qabtay maleeshiya ka tirsan argagixisada Alshabaab isla markaana Gubay xarunaya Alshabaab ku lahaayeen deegaanadaasi deegaanada ciidanka ay howlgalada ka fuliyeen ayaa waxa kamid ah Caliyow Barow doonka awgoodle busley galooley xarbiga warta mursal buulo ay faami iyo waliba deegaano kale halkaasi oo argagixisada dhibaatooyin ku hayeen shacabka ku dhaqan deegaanadaasi taliya Cabdullaahi Mustafa Ali Madaala qaran oo hogaaminaya howlgalka uu ku wehelinayay taliyaha ururka 64 guutada 7 qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliya Ali Cabdullaahi Halac Dheere ayaa idaacada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen 6 dhagar qabe oo ka tirsan maleeshiyaadka Alshabaab kuwaas oo qaarkood lagu qabtay qoryaha fudud ee sida AK47 lana gubay goob ay dadka ku xiri jireen waxa ayna ciidanku sii daayeen dadkii ay dhagar qabayaasha maxaabiisaan u haysteen taliya Cabdullaahi Mustafa oo sheegay in ciidamada ay diyaar u yihiin inay difaacaan dadkooda iyo diintooda isla markaana aysan ka daali doonin howlgallada ka dhanka Alshabaab ilaa cadawga laga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin qaar kamid ah gobolada dalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gobolka Galgaduud ka wada howlgallo ay kaga sifeynayaan maleeshiyaadka Alshabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin howlgalkan oo socda muddo ayaa waxa argagixisada la gaarsiiyay jab xoogan waxaana lagu burburiyay salgiga ay ku lahaayeen deegaanada Bulacle Cad Xareer iyo waliba Ceel Calimire inta howlgalku uu socday ayaa argagixisada waxa laga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan iyadoona hub iyo saanad looga qabsaday howlgalka ciidanka xoogga dalka gabaldhici ay ku sameeyeen deegaanka labidule ayay Alshabaab kaga saareen deegaankaasi oo halka ay ka soo abaabul jireen dhibaatooyinka ay u soo maleegi jireen shacabka ku dhaqan degmada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug iyo nawaaxigeeda dagaal kooban oo deegaankaasi labidule ka dhacay ayaa maleeshiyaadka Alshabaab looga dilay ku dhawaad 10 maleeshiyaad iyadoo maleeshiyaadka kale ay u farxadeen dhanka degmada Ceelbuur iyo deegaanka Ceel Garas halkaas oo maleeshiyaad ku sugnaa iyana ay soo foos saartay cabsi xoogan si ay ku soo waramayaan saraakiisha howlgalka hogaaminaysay howlgalkan oo ay wadeen ciidanka qaybta 12aad ayaa waxa ka qayb ahaa Kumandooska xoogga dalka ee Danab iyo Kumandooska ka tirsan iyo ciidamada ka tirsan Niisa kuwaas oo ku sugan gobolka Galgaduud iyo waliba ciidanka Jabuuti ee Hiil Walaal howlgalkan oo dhowr jaha ka socda ayaa ciidanka ku sii baxsanayaan farxadka maleeshiyaadka Alshabaab kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo amni xaqiijin ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Buufo Bacaad iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayay uga badbaadiyeen shacabka Soomaaliyeed ee wadadaasi ku safra dhagarta maleeshiyaadka argagixisada Alshabaab ay ku guuleysteen miinooyinka dhowr ah oo argagixisada wada galiyeen howlgalkan oo ay sameeyeen guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo saareen 3 miino oo Alshabaab wada galiyeen sida ay u dhibaateeyaan shacabka wadadaasi isticmaala sidoo kale waxa gacanta ku soo dhigeen mid kamid ah maleeshiyaadka Alshabaab ee wadadaasi Buufo Bacaad iyo Janaale isku xiran miino ku aasayay kaasi oo ay u soo gudbiyeen hay'adaha ku shaqada leh baaritaankiisa si loo horgeeyo cadaaladda howlgalka amni xaqiijinta ee deegaanadan ayaa qayb ka ah howlgallo ay wadeen guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo loo oggol lahaa sida loo xaqiijin lahaa ammaanka wadadan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa khasaare xoogan u geystay maleeshiyaadka argagixisada Alshabaab tuulada Bulalow oo hoos tagta degmada Afkooy ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen fariisin ay argagixisadu ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah waxaana weerarkaasi loogu dilay ku dhawaad 51 maleeshiyaad ah kana tirsan Alshabaab iyo tiro horjoogayaal ah
saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalka uu ka dhacay doonka lagu dilay in ka badan 51 maleeshiyaada iyo horjoogayaal muhiim ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ay kamid ahaayeen horjooga Cismaan Fiido oo maleeshiyaadka u qaabilsanaa dhanka howlgelinta gobolka Shabeellaha Hoose horjooga Muxyidiin Maxamed iyo horjooga magaciisa afgarashadu yahay Timo Weyne waduna ay ka go'an tahay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhangaargixisada Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ku sugan magaalada Baardheer ee gobolka Gado ayaa maanta weerar ku qaaday maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo urursanaya tuulooyinka hoostaga degmada Baardheer kuwaasi oo kaga beegan dhinaca wadada aada degmada Saako dagaalka saacado kooban socday ayaa ciidanka xoogga dalka gabi ahaanba burburiyeen fariisimihii maleeshiyadka argagixisada ku lahaayeen tuulada Kormeeri kuwaasi oo dhibaatooyin ba'an u geysanaya shacabka ku dhaqan degmadaasi ciidanka xoogga dalka ayaa halkaasi ku qaarajiyay horjoogayaal maleeshiyadka Al-Shabaab u qaabilsanaa degmada Baardheer iyo deegaanada hoos yimaada kaasi oo lagu magacaabo Sakariya Sheekh iyo 7 maleeshiyada sida warbaahinta u sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka saraakiisha ayaa intaasi ku daray in haatan lagu daba jiro farxadka maleeshiyadka Al-Shabaab isla markaana looga daba tagi doono dhulka hawdka oo ay ku dhumaalisanayaan haatan aanu agno dhanka iyo wararka dibadda daawadayaal haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda ku gashay inay noqoto madaxweynaha Tansaaniya kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timi madaxweynihii hore ee John Magufuli Saamiya Xasan ayaa maanta loo dhaariyay xilka iyadoona gacanta ku haysata kitaabka Quraanka waxayna dhaarta ka dhacday qasriga madaxtooyada oo uu ku yaala magaalada Dar es Salaam ee caasimadda ganacsiga dalkaasi waxaana dhaariyay xaakimka guud ee dalkaasi Ibrahim Juma haweeneydan qunyar socodka ayaa ku xigeen u ahayd Magufuli tan iyo sanadkii 2015 waxaana aad loogu yaqaanaa qof aad u dhowrsan sida ay xildhibaanada qaar u sheegeen BBC-da guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warkii aad kala socoteen channelka Dana Media fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada sidaas iyo nabadgelyo